waxaa si habsamin leh oo nabad ah maanta u soo gabagaboobay doorashada 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo lagu qabanayay doorashadooda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Kuraastan oo toddobaadkan ahaa kuwii ugu hadal haynta badnaa khilaaf badanna uu ka taagnaa ayaa sidii la filayay aan noqon. Mana dhicin wax loolan adag ah oo dhex maray musharaxiintii ku tartamayay kuraasta. Kursigii ugu dambeeyay ee 16aad ayaa goor dhaweed lagu doortay magaalada Boosaaso oo ah deegaan doorashada labaad ee Puntland. Guddiga labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaana ka warbixiyay doorashada tan sida ay u soo idlaatay. doorashooyinku waa iska xamaasad badan yihiin balse doorashadani waxay kaga duwan tahay doorashooyinka waxay ku soo dhamaatay si guul ah oo nabadgelyo ah. waxaanu uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed heer federaal, guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed sida quruxda badan oo ay u daadihiyeen doorashada oo shaqada baaxadda leh iyo juhdiga ay geliyeen inay doorashooyinka qabtaan. sababtoo ah maamulka doorashooyinka xoogooda ugu badan wuxuu ku dhacayaa guddiga siidka. annaguna waxaanu leenahay korjoogteynta iyo inaanu si guud ula maamulno doorashooyinka. dhammaan guddiga xalinta khilaafaadka iyaguna goobta ku sugan, dhammaan guddiyada doorashooyinka oo isku duuban waa uga mahadnaqaynaa shaqada quruxda badan ay qabteen. xigmadda weyni waxay ahayd in doorashadu Boosaaso ka dhacdo, laakiin xildhibaanka soo baxaya dee nin kasta oo Puntland ayaa xaq u lahaa kursiga inuu ku soo baxo. kolley 16 qof baa ku soo bixi lahaa, 16 qof baana ku soo baxay oo kursi walba beeshii uu ku astaysnaa ah. sidaa daraaddeed waxaanu qiraynaa in doorashadaas inay hufnaan ay u dhacday. xildhibaanada soo baxayna ay ku soo baxeen si maaragtay ay hufnaan ka muuqdo. mar labaad waxaan u mahadcelinayaa oo aan marnaba aan ilaawi karaynin ciidamada ammaanka sidii ay uga qayb qaateen ammaanka doorashada. Ficil Burkuud DD RTV.